dhaqanka wax akhriska iyo cilmi baarista ee awjaamac Cumar Ciise oo la aasaasay bishii Agoosto sanadkii 2013 waxa ay hadafkeedu ahayd in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo aan lahayn xarun ay dadka bulshada ahi leeyihiin ay wax ka beddesho habdhaqanka iyo sidoo kale noolaynta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. xaruntu tan iyo intii la furay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qabanaysay waxaa ka mid ahaa iyada oo gacan siinaysay dadka qorayaasha ah ee Soomaaliyeed kuwooda Kenya degan iyo kuwa ka yimaada qaybaha kale ee dunida. waxa ay ka caawinaysay in ay la saxdo, la daabacdo, lana soo bandhigto buugta ay qoreen. xaruntu sidoo kale waxa ay samaynaysay dhiirigelin dhinaca qoraalka ah iyada oo samaysay madal wax akhris taasoo dhalinyaro ay isu tagto kadibna ay buug ku akhriyaan ayna ka doodaan. xaruntu sidoo kale waxa ay qabanaysay barnaamijyo toddobaadla ah oo sabti walba baxa kaasoo lagu casuumo qof bulshada waxtar u leh sida dadka qorayaasha ah, taariikhyahanada, abwaanada, ganacsatada, dadka gargaarka ka shaqeeya iyo qaybaha kale ee bulshada, iyaga oo u soo jeediya dhalinyarada ku taxan xarunta waxyaabaha markaas muhiimka ah sida inay kala hadlaan deegaanka, wax akhriska, sida fikirka loo bedelo, waxqabadka bulshada iyo arrimo kale oo la xiriira arrimaha aqoonta bulshada. xaruntu waxa ay bilowday sanadkii 2015 barnaamij ballaaran oo la yiraahdo Toddobaadka Dhaqanka Soomaalida, kaasoo sanadkiisii saddexaad la qaban doono bisha Oktoobar ee inagu soo socota. barnaamijka Toddobaadka Dhaqanka waa mid loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya ay kula wadaagaan bulshooyinka kale ee kula nool waddanka waxa ay Soomaalidu tahay, waxa dhaqankeedu yahay iyo soo jireenkeeda taariikheed. barnaamijkan oo qaybo ballaaran ka kooban ayaa waxaa ka mida soo bandhigid agab dhaqameed uu ka mid yahay aqal Soomaaligii iyo wixii dhex yaalay, hadday ahaan lahayd gogol, hadday ahaan lahayd wax lagu cuno iyo hadday ahaan lahayd waxa gurigu ka samaysan yahay. waxaa jira qayb bandhig buugeeda oo buugaagtii Soomaalida laga qoray ha ahaato Carabi, Ingiriis iyo Soomaaliba iyana lagu soo bandhigo. waxaa jira ciyaar dhaqameedyo kala duwan iyo suugaan la soo bandhigo. sidoo kale waxaa jira doodo furan oo dad aqoon-yahano iyo khubaro Soomaali iyo ajaanibba isugu jirta lagu casuumo, lagana hadlo arrimaha dadka Soomaaliyeed taabanaya ee ay ka mid yihiin tahriibka, qaxootinimada, ganacsiga, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. xaruntu sidoo kale ka hor Toddobaadka Dhaqanka waxa ay abaabushaa tababaro ay siiso in ka badan 100 dhalinyaro ah. tababaradaas oo 2 bilood in ka badan soconaya. qayb waa haweenka ayay gaar u tahay oo waxaa la baraa farshaxankii agab dhaqameedka kaasoo hadda noqday mid duugoobay. farshaxankaas waxaa ka mida sida loo sameeyo haanta, sida loo sameeyo daabaca, sidoo kale sida loo sameeyo dambiilaha oo runtii ahaa wax soo saar aad muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed nolosheeda. waxaa kaloo gabdhaha la baraa sida ay cilaansaarka u samayn lahaayeen iyo sida ay timaha u dabi lahaayeen si ay ugu noqoto fursad dhaqaale oo hadday u baahdaan ay ugu xamaalan karaan, iyadoo haweenkana ku dhiirigelisa intii ay guryaha fadhiisan lahaayeen kuna lumin lahaayeen wakhtigooda inay daawadaan filimaan iyo jaatin ay kaga jiraan arrimaha bulshada oo wakhti dheer uu kaga lumo ay fursado shaqo ku abuuran karaan iyagoo guryahooda jooga. dhalinyarada oo iyagana la baro sida ay baraha bulshada, waa warbaahinta arrimaha bulshada, ay ugu samayn kari lahaayeen isbeddel. qofku hadduu doonayo inuu ka hadlo arrimaha deegaanka, hadduu doonayo inuu ka hadlo arrimaha bulshada,
hadduu doonayo inuu ka hadlo arrimaha siyaasadda uu fikir ugu gudbin karo. waxaa kale oo ka mid ah tababarradaas sida farshaxanka gacanta loo sameeyo oo lagu dhiirigeliyo dhallinyarada inay kartoomo sawiri karaan si ay ugu noqoto xirfad ay ku shaqaysan karaan bulshadana wax ugu tari karaan. sidoo kale waxaa ka mid ah tababarradaas sida loo qoro sheekooyinka oo runtii arrin aad u muhiima leh. xaruntu sidoo kale waxay isku dayday inay gaadho bulshooyinka qaybihiisa kala duwan. waxaa jira ururka dhegoolayaasha ee xaafadda Islii oo dhallinyaro dhegoolayaala oo rag iyo dumar ah oo ka badan 50 ay ku midaysan yihiin. toddobaadkii dhaqanka ee 2016 ayaanay markii ugu horraysay ka soo qayb galeen. hadda waxay xarunta ku qaataan iyaguna tababarro dhinaca farsamada ah. xaruntu waxay higsigeeda ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo inta badan ganacsi ku tiirsan ayaa waxay noqotay xaafadda Islii mid aan lahayn xarumo ay bulshadu isugu timaado ama danaheeda maareeya. tanoo ay xaruntu u istaagtay in bulshada Soomaaliyeed ay barto in noloshu lagu soo kordhin karo si loogu sameeyo bulshada isbeddello waaweyn oo la taaban karo. waxaan marka dhegaystayaal idinku soo gabagabaynayaa xaruntu waxay ku socotay muddadaas xoogga dad isxilqaamay oo iyagu u huray dhaqaalahooda, wakhtigooda iyo aqoontooda, soona gaarsiiyey meesha ay hadda marayso. waxa ayna rajaynaysaa inay higsato horumarro kale oo ka waaweyn oo ay gaarsiiso dadka Soomaaliyeed, ayna mar uun la fahmaan bal waxyaabaha muhiimadda ah ee ay leedahay xarun dhaqan oo lagu kaydinayo, lagu horumarinayo, laguna soo bandhigayo afkii, dhaqankii iyo agab dhaqameedkii ay Soomaalidu lahayd.